kulankan u dhaxeeya saraakiisha laamaha amniga Beledweyne iyo maxkamadda ciidanka qalabka sida qaybta 27aad ee maanta ka dhacay xerada ciidanka ee Lamagala ee Beledweyne ku taal ayaa looga hadlay amniga Beledweyne waxaana laga soo saaray dhowr qodob oo gudnig u ah sugidda amniga Beledweyne dardargelinta dagaalka ka dhanka ah al-shabaab la dagaalanka dadka isticmaala waxyaabaha maanka dooriya oo haatan in ka badan 20 ruux oo iyaga oo isticmaalaya lagu soo qabtay xabsi loo taxaabay ka hortagga dadka hubka sida sharci darrada ah Beledweyne ugu wata gaadiidka lagu xardhay muraayadaha madow ama bensalka loo yaqaano iyo qodobo kale ayaa kulanka ka soo baxay taliyaha guutada shanaad qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Korneyl Faarax Cali Waasuge Faarax Kooshin iyo xeerlaaliyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida qaybta 27aad Dhamme Maxamed Cabdulqaadir Maxamed ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyay kulanka markii uu soo dhamaaday kadib waxyaabihii kulanka looga hadlay shirka jaraa'id maanta ilaamaha amniga iyo maxkamadda iyo xafiiska xeerlaalinta ay ku yeesheen xafiiska guutada ujeedadu wuxuu ahaa in aan ka hadalno dhowr qodob sida taliyaha uu sheegay waxa magaalada ka socda howlgal waxaan rabaa howlgalkaas inaan horta dadka u bayaaniyo howlgalkaas wuxuu bilowday maalintii Khamiista la soo dhaafay habeenkii Jimcaha waxa howlgalka sameynayay waxay ahaayeen ciidamada qalabka sida ugu horeeyaan ciidamada militariga iyo nabadgelyada iyo booliskaba waxa lagu soo qabtay xafiiska xeerlaalinta ay ku soo wareejiyeen laamaha amniga habeenkaas Jimcaha ilaa maalintii Sabtiga ahay tiro dhan 15 xali ilaa saakina howlgalku sii socday tirada xabsiga loo gudbiyay maxkamadda ciidamada u gudbisay laguna soo qabtay maandooriya waa 20 ruux oo dhamaantood gacanta ku haysta qamrada iyo xashiishka ay isticmaalayeen mid aan cadeemohiisa lagu qaban laamaha amniga ma isa soo qaban laamaha amniga in sidaas ay u shaqeeyaan waxay dardaaran ka soo baxay saraakiisha hogaaminaysa iyo maxkamadda ciidamada oo shir wada qaatay waxa suurtagal aanan ahayn doono cuntamaynin anaka garaado wadano ciidamo mas'uulka ah mas'uuliyad aan sheeganayn in gabadha Soomaalidu Beledweyne ku nool habeenkii mid maandooriya cabsan daraadeed ay gurigeeda ugu bixi weysay waxaan ugu mahad celinayaa bulshada reer Beledweyne ciidamada amniga kala shaqeeyay in shaqadaas la qabto waxaan rabaa inaan meeshan ka cadeeyo waxa jirta hanti ama baabuur lagu soo daabulo ama bajaaj lagu soo daabulo qamrada iyo xashiishka iyo mootooyin ayaa jira kuwaasna waxaan rabaa inaan halkan ka iraahdo go'aan guud oo ay qaateen laamaha amniga iyo xafiiska xeerlaalinta ayaa jira baabuur walba lagu soo qabta ama bajaaj walba lagu soo qabta iyadoo sida alaabtaas waxa la horgeenayaa garsoorka ciidamada sharcigana uu ku cad yahay oo qodobadiisu way cadeynayaan wax meesha ku yaal oo hantidaas ku saabsan waxa jira dukaamo lagu dhaxgado iyo guri lagu dhaxgado waxa jira dumar alaabtaas qariyo guriyaha ku dhaxgado iyo dumar isticmaalaba dadka hadda la soo qabtay dumar kuma jiraan laakiin wax lagu baadi joogo oo dumar magaalada jooga oo iyakana barnaamijkaas shaqo ku leh hantidan taasan ka leeyahay taliyaha guutada hadalkiisa ayaan rabaa inaan hal far in ku adkeeyo hal mid hubka sharci darrada ah oo magaalada lagu haysto dalkan 30 sano ayuu burbur ahay 30 sano oo burbur ka ah qabiil walba wuxuu yeeshay hub u gooniya dawladda hub ka badan ay qabiilada gacanta ugu jiro walina system guud ama amar guud oo dawladda ay ku xalinayso arintaas kama aysan soo bixin laakiin laamaha amniga meelaha ka shaqeynayaan cid walba muwaadin walba wuxuu xaq u leeyahay dawladda inay amnigeeda sugto muwaadinkan waxa xaq loogu leeyahay inuu asagana raaco amarka dawladnimada hubka qabiilada ay leeyihiin ama shakhsiyaadka ay leeyihiin waxa leenahay magaalada ka bixiyay miyiga geeya ama guriyihiina dhulka hoostiisa ku qarsada ama soo diiwaan geliya hubka magaalada Beledweyne waxa loo ogolay dhowr qaybood bis inay hub ku qaadan karaan waa 4 ciidan iyo cid kale ogolaasho ay u siiyaan laamaha amniga intaas wixii ka baxsan waxay noqonaysaa nabadiidka salaanka bacdi maanta halkan waxa isugu nimidnay hay'adaha amniga iyo maxkamadda ciidamada bariyahan gobolka Hiiraan xaalad amni darro ka jirtay xaaladaas oo dadka shacabka ah gobolka degan u dul qaadan waayay han noqoto mid al-shabaab iyo han noqoto mid amni gudaha oo dadka muqaadaraadka
isticmaala dad shibilho iska yimid oo magaalada hub la soo galay iyo arrimo badanba arrintaas waa loo dul qaadan waayey waxaan halkan baaq maanta uga dirayaa hay-adaha amniga inay arrintaas ay u istaagaan ciidamada qalabka sida dhammaantood meeshan waa ku dhan yihiin maxkamaddii way joogtaa waxaan rabnaa in tallaabo adag laga qaado arrintaas number 1 argagixisada al-shabaab oo laga hortago iyo wixii gacan saar la leh ciddii gacan saar la leh iyo argagixisada oo laga hortago qodobkaas waa qodobka koobaad qodobka labaad waxa waaye hubka sharci darraaha ee magaalada lagu wato see amni loo sugayaa haddii hubka uusan noo tiro koobnayn hubka magaalada lagu wato waxaa loo ogol yahay ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan dadka shacabka ahu ha geysto guryihiisa ha u qaato meeshay u yiileen magaalada hubkii aan kula wareegno oo aan ku qabanno waa la wareegaynaa maxkamadduna markhaati ka tahay maxkamadaan keenaynaa waa la wareegaynaa dadku ha dhigto baryahan waxa la caadaystay in laba nin hadday isqabato qolaba hub la soo baxdo dhulaan isku haysanaa qolaa hub la soo bixi meesha nidaamaa ka jira dawladnimaa ka jirta dadku waa soo dacwoodo laakiin reer hebel dhulay isku haystaane qoryayna saaka isku haystaan ugu dul qaadan mayno wax badan aan odayaashana la hadalnay u sheegnay haddana odayaasha sharafta leh waa gaarsiinaynaa arrintaas in aysan dib daba u dhicin waxaa soo heray ragga khamriga iyo calaqa iyo cashiishka magaalada ku caba maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa xeer ilaalinta in raggaas maxkamad la horgeeyo ciidamada amniguna waxaan ka codsanaynaa inay tallaabo qaadaan soo qabtaan cawiya maalin u taagnaadaan waa cadow waa wax islaamnimada ka baxsan waa wax ma yaqaano hooyadiis dilaayana lama oga aabbihii dilaaya lama oga dadkay laayeen dadka marka daroogadaas isticmaala weliba xogta waxaan ku haynaa inay rag iyo dumar leeyihiin ma ka xishoonayn arrintaas waxaan soo jeedina in tallaabo sharciya hadda kabacdi laga qaada ciddii arrintaas lagu soo qabto maxkamaddu inay tallaabo ka qaado ciidamadeennuna noocyada kala duwanuhuna inay fuliyaan waajibkaas habeen iyo maalin u taagnaadaan waxa saddexeeya qodobka saddexaad ah baabuurta miraayadaha beesalkaa wata iyo baabuurta bajaajyada oo laga furay taargada laga furay haddii gobolka niman kale ka taliyaanay baabuurta taarga laga furo haddaan is arkaynaa baabuur kasta oo taargalaana oo la soo qabto ganaaxuu mutaysana marka koobaad ganaaxuu mutaysana marka labaad waa mutaysana marka saddexaadna waa lala wareega hay-adaha amniga waxaan ku wargelinaynaa inay dhammaan hawshaas ka howlgalaan annagoo isku duuban aan ka wada howlgalno shacabkana waxaan ka codsanaynaa inay soo sheegaan dadka ku dhuumaalaysanaa guryahooda ama cashiishka ku cabaa ama shuftada al-shabaab soo gelaysa inay soo sheegaan ay ciidamada amniga gacan siiyaan habeen iyo maalinna waa u soo jeedaynaa waana la dagaalamaynaa wixii arrintaasoo dhan faraha kula jira aad iyo aad aa u mahadsantihiin soo dhowaada adigoo mahadsan intaadan ka bixin waxaa bulshadu ay aad u hadal hayaan in khamriga iyo waxyaabaha maanka dooriye ee kale magaalada aad ugu soo badanaysa sida adiga ka dhawaajisase waxaa jirta xan bulshada isla dhex marayaan oo ku aadan in ciidanka qalabka sida qaarkood ay isticmaalaan waxyaabahaas maanka dooriye gaar ahaan qaybta militariga oo idinka idin khusaysa dhankiina ma iska warsateen arrintaasi mana jirtaa maxaase tallaabo ah oo idinka qorshaysan haddii aad aragtaan askari ama sargaal arrintaa samaynaya falkaa aadaa u mahadsan tahay waa su'aal wanaagsan annaga ciddii horta sideedaba xoogga dalka soomaaliyeed inay jaad cunaan hata looma ogolo ciidamada qalabka sidana waa nala mid oo noocyadooda kala duwan ciddii lagu soo qabto ciidamadana way ka baxaysaa gaal shiro dheerayna mutaysanaysaa ciqaab dheeray mutaysanay ciddii ciidamada khaasatan adiga waxaad i tiri ciidanka militariga annaga
military ahaan hadda ma ogin cid khamri cabta laakiin ciddaan ku helno oo qarsanaysaba ha ogaato saxaafadan maanta miidiyahan u marsiinay ha ogaato ciddaan ku soo qabsanna aan ku helnaa inay maxkamad tegayso maxamed ibraahim siyaad hiiraan bila telefishin beledweyne